iyaga ahayn inta kaloo dhanna waa iyaga. waxaan markaa dadka in badan isweydiinaya su-aashan weydiinaya waxay tahay waxaan arkayay niman Awdal State Movement ka mid a qaar ku jiray oo lahaa ujeedadayadu waxay ahayd in annagu muusan nacayb oo ugaaskiina waa kii taageeray tusaale usoo qaadanayeen. maxaa markaa isbedelay oo aydin muuseba shaksi bila'aadan ooba uu ahaayo anuu lama yaabayo muuse waqtiga ninkaa meesha ka saarno oon aakhiro u diro oon maamul ku bedelno oo annaga noo shaqeeya oo positive ah oo difaaca dhulkayaga taasaan ku guulaysanay. sidaan anigu markaa u taageeray maamulkana waa sidaan ugaaskayguna u taageeray. ugaaskaygu markii Awdal State Movement la samaynayay oo Turuul joogay anna waan joogay. ugaasku ma oran Awdal State hala baabi'iyo, laakiin ugaasku wuxuu yidhi hala taageero maamulkaa iyo nimankaa hadda soo socda ee doonaya inay ka hor yimaadaan MOU-ga. sidaasaan ku taageernay. maamulkii meesha waan ka saarnay. haddaan maamulkii meesha ka saarnay, wasiirkii arrimaha dibadda aan qaadanay, mowqifkiisii uu caddeeyey, dee waxay caliid ward waa arrin muhiima wey inaanu taageerno, inaanu arrintaas daba joogsanno. haddaan reer awdalnahay waa muhiim wey. inta Awdal State marka dirow optionka ka hor optionkiina koowaad wuxuu ahaa inaad dowladda taageero ka heshaan dowladda dhexdaas taala aqalka. laakiin muuse cumar ka fiican yahay adeer xeerkii qaaxa meesha la isku xukumayaa ama ogolow ama ogolaan, laakiin waxaan kala dhawo wada shaqaale hadda ninka usii sacabtumayaan isaga degsi liitaba. laakiinse waxaan ka shalaynayaa in rag SNM aaminsan inaan la shaqeeyey oo weliba ASM ama Awdal State Movement weli jiray waa ka shalaynaya. waxaan u soo gudbayaa hawsha ree awdal taala. waa ree awdal dowladda dhexe maanta dee uu Xasan Sheekh uu hayo shaambadeeda. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. allaahuma ajcalnaa haadiina muhtadiin. ilaahow naga dhig kuwa hanuunsan dadkana hanuuniya dhammaan dadka Soomaaliyeed ee barnaamijka Gufaaco ka daawanaya Somali Canadian TV kana dhageysanaya radio Boremes KMS 102.7 FM. barnaamijka Gufaaco waxaan ku soo qaadanaynaa xaaladda Soomaalidu dhammaan ku sugan tahay. waan ognahay ummadda Soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay inay gacmaha isqabsadaan. dadka Soomaaliyeed degaan ma kala laha, waa dad wada dhashay, waa dad isku midab ah, isku diina, isku luqad ah. waxaan ummadda la wadaagayaa reer walba maanta Soomaali in yar mooyaane intii badnayd waxa ay samaysteen maamullo iyo xuduudo aan loo baahnayn. waxayna taasi tahay mid Soomaali khatarteeda leh oo muddo laga shaqaynaya si aynaan u heshiinin waxna u wada qabsan. haddaba dadka barnaamijka dhageysanaya in badan waxaan ku celceliyay Somaliland oo aan sheegay waa systematic repression. waxa weeye maamul qurux badan oo siduu u qurux badan yahay haddana aanu ahayn xaqiiqda dhabtaa sida ay tahay. madaxweynuhu waa beesha dhexe, madaxweyne ku-xigeenku waa beesha Gadabursi, ra'iisul baarlamaanku waa dhulbahante. waxaad ogtihiin waqooyi waxa wada dega gobollada kaas ad aragteen waqooyi dad kala duwan, qabiilo kala duwan. waxaad ogtihiin inay isku dulman yihiin. only waxa wanaagsan intii la kari karo dulmi dhammaan maayo oo mar walba uu jiraya. oo wuxuu yidhi ninkii activiska ahaa ee dhakhtarka ahaa Luther King wuxuu yidhi meesha ay ka jirta cadaalad darro waxay liid ku tahay cadaaladda. meesha ay ka jirta cadaalad darro waxay liid ku tahay cadaaladda. waxaan ognahay dadka wada degan in laga shaqeeyo sidii ay wax u wada qaybsan lahaayeen, nabadna ugu wada noolaan lahaayeen.
waxaan intaa ku baaqaynaa oo leenahay gobollada waqooyi dhammaan iyo dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan in dhiigga muslimiinta xurmadooda la ilaaliyo waxaan ummadda la wadaagayaa somaliland isbeddel baa ka dhacaa la yidhi isbeddelka ka dhacay in badan soomaalidu dhagahaa loo taagay waan ognahay oo waxaan sheegay maalin hore waxaan idhi ciro iyo ninka ku-xigeenka ku ah laba sifo oo wanaagsan bay leeyihin ammaano iyo akhlaaq oo dhaqan wanaagsan aha labaduba waa laba nin oo aad loo ammaanay laakiin waxa ay tahay systemka iyo waxa meesha yaali runtuu ka turjubaysaaye iyaga maaha iyagu dadka keligood wada maaha dad baa lala tashanaya dad baa ka mida dad baa madaxa marka waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo in badan qolada kaliya weli maamulada soomaalida tiri weeye anagu soomaali arki mayno laakiin caawa waxay noo muuqatay xitaa safiirkii joogay yurub inuu lahaa wadahadallada soomaaliya waanu soo fadhiisanaynaa lamana kala maarno calaamado wanaagsanna muuqata laakiin waxa meesha yaalla hadda sida wax loo qaybiyo lafteeda maamulka uu madaxweynaha ka yahay ciro waxa la bixiyey 29 wasiir buu magacaabay 29 wasiir 6 beel 6 qof oo ah beelaha kale la dega mooyaane inta kale oo dhanba waa wada iyaga 29 buu magacaabay raalli ahaada 29 uu magacaabay 6 mooyaane 20 kale waa isla beesha dhexe waxa haddana la magacaabay barasaabiyada gobollada iyo ku-xigeenadoodii iyagana waxa la magacaabay 23 baa la magacaabay 3 baan iyaga ahayn inta kaloo dhan waa iyaga waxaan markaa dadka in badan isweydiinaya su-aashan weydiinaya waxay tahay waxaan arkayay niman awdal state movement ka mida qaar ku jiray oo lahaa ujeedadayadu waxay ahayd in annagu muuse nacayb oo ugaaskiina waa kii taageeray tusaale usoo qaadanayeen maxaa markaa isbedelay oo aydin muuseba shaksi bila'aadan oo buu ahaayo anuu lama yaabayo muuse waqtiga uu joogay iyo duruufuhu marayay isaga iyo ciro aniga uma arko wax difference ah sababtoo ah waxaan xasuusanaa markuu ahaan jiray baarlamanka waxaa la yidhi waxa baxaya beesha wasangeli iyo dhulbahante iyo gadabuusi iyo ciise kormkuu inoo buuxaa buu lahaa iminka dee ma aqaan waxa isbedelaya hadafkan iyo fikirkanna rag baa dhiig usoo daadiyo muddo ka shaqaynayay marka horaa waxaan looga shaqeeyo waa wax muddo la wareeye wax yoom horey soomaalidu waxay odhan jirtoon maqli jiray rooma maalin laguma dhisin soomaalina wax maanta iyo barri isku bedelaya maaha waxa ay sheegeen qaar innaga inaga mid oo aqoon-yahano ah oo kasoo jeeda awdal inay lahaayeen tabashadayadii waxaan u dhiibnay ciro oo xisbigii wadaniya marka anigu waxaan qabaa iyo kuwa ila midkii raggan ammaanaya wasiir dimadeed ku ammaanaya wasiir wareegaya oon xitaa xafiis joogta a lahayn maxay macno leedahay aan safaarada lahayn safaaraduhu yihiin community activists maxay tahay marka ma dowlad baa maxayse iyagu laftoodu gobolladaasi waa gobollo la mid eh intay wax qabsadaan oy midoobaan may wax wada qabsadaan oo gobolka awdal beesha ciise iyo beesha gadabuusi tagaska wax walba ee meeshaasi iyagu intay ku intifaacaan dhulkooda iyo deegaankooda wax ugu qabtaan kuwa kale ee jaarkoogana sidaasi leed iyaga oo midnimo ummad soomaaliyeed raadinaya maxaa u diidan maxaa isbedelaya markaa waxaase la yaabana oo intaa aan arkaynaa maalin boqolo unbaa leh annagu macaarid baana ree awdal waxaa ka lumay horta in badan oo iyaga ka mid ah jihadii iyo leadershipkii baa maqan inkastoo soomaali oo dhanna la qabaan laakiin dee waxa ay iyagu leeyihiin baa la yidhi oo ay dadku u badiyaan aqoontu in badan dadka waa lagu celceliyaa aqoontu waa information aqoontu waa xirfad lagu shaqaysto inaad ogaataan weeye qofka hindiga ah ee calooshiisa u shaqaystay PhD reerkiisa aqoon iyo kuwa la sheegay wax kala duwan difference ma leh marka in badan in
marka lala hadlayo aqoon baad leedihiin aqoontu waa inay wax dhalisaa aqoontu waa inay leadership keentaa aqoontu waa inay midnimada ka shaqaysaa aqoontu waa inay ummadda isku haysaa marka reer awdal waxaan leeyahay mar hadduu hayigu qaybsamo waa hunguri joog yaa ummadii waxay horumar gaadhaa marka ay mid tahay haddii reer awdal midoobaan beesha dhexe midoobaan beel walba midowdo soomaali wuu midoobi waxaan anigu leeyahay iyaga waxa maanta u yaala inay ka shaqeeyaan inay midnimo dhexdooda la helo ah oo ay dadkii kale ee walaaladoodna raadiyaan waxaanan halkan kala hadlayaa gobollada bariga ceergaabo waan arkaynaa dagaalaa la abaabulaya barnaamijkaygana waan ku sheegay waxaanan leeyahay ummadda soomaaliyeed walaalayaal dhiigga muslimka xurmadiisa aad bay diinta uga hadashay waad naga wada aqoon badan tihiin waa taqaanaan yaa ninka ugu yeedha dadka qabadiya ee calan ugu samaysta ee ku dhinta annaga naga mid maaha buu nebigu yidhi waad ogtihiin waciidka ku soo arooray culimmadu intaa way hadlayaan dagaalka qabiilka ee ah ku saabsan annaga qasab hala nagu soo raaco maya annagu idinka idima rabno dhiigga muslimiintu ku daadanayo xurmadiisa in laga shaqeeyo oo ummadda soomaaliyeedna waxayna saaran waciidkii uu ilaahay waajib inaga dhigay uu yidhi wain daa'ifataanu min almu'miniin haddii laba mu'miniinta ka mid a dagaalamaan waxa waajib inagu in la heshiisiiyo oo had iyo jeer laba xaafadood bay noqon karaan laba gobol bay noqon karaan laba xisbi bay noqon karaan laba dowladood bay noqon karaan laba reer bay noqon karaan intaba in ummadda soomaaliyeed ogaato way arrintaa in laga shaqeeyo oo mar dambe dhiig soomaaliyeed meel la aanu ciyaar ku daawanin oo calamada la wada samaystay reeraha dadku ay ilaahooga ka baqaan oo ummadda soomaaliyeed ka shaqayso midnimada iyo walaaltinimadii halka barnaamijka aad ka daawanaysaan waa Somali Current TV kana dhegaysanaysaan radio Polome CMK MS 102.7 FM waa anigoo Tabqatira Xaamud Suldaan Cali Cilmi Suldaan